waxaa jirta kumanaan ciidanka federaalka Itoobiya ayaa lagu soo gurayaa deegaanada ku yaala xadka u dhexeeya Axmaarada iyo Oromada gaar ahaan deegaanada markaas ay dagaaladu ka socdaan ee gobolka Walaga waxaana hadda la sheegayaa in dagaal xoogani uu dhex marayo ciidamada dowladda deegaanka Oromada iyo maleeshiyaadka Axmaarada ee Faano kuwaasi oo la sheegay inay Walaga ku dagaalamayeen haddaba waxa la sheegay in haatan ciidamada federaalka Itoobiya deegaanadaasi laga hawlgelinayo waxaana la siiyay ciidanka dowladda deegaanka Oromada inay ka baxaan markaasi sida ugu dhaqsaha badan leh gobolka Walaga waxaana hadda la sheegay marka ciidamada federaalku in ay la wareegayaan qoomiyadda Axmaarada ayaa ku eedeysay in ciidanka dowladda deegaanka Oromadu ay markaasi ku jiraan qaar ka tirsan marka jabhadda Oromada OLA oo ay sheegeen marka inay si cadowtinimo leh ay haatan dadkii Axmaarada u xasuuqayaan waxa xusid mudan dhinaca kale inay mudaharaadyo waaweyn ay Oromadu wadaan oo ay ku eedeynayaan in haatan isirsifayn ay ku sameynayso Axmaarada ciidamadooda Faanooda iyo waliba kuwa ciidamada gaarka oo soo gudbay deegaanka Oromada soo galay oo shacabka Oromada waxay yiraahdeen sutida u qabtay qoortana ka gooyay dad badan oo kumanaan kun oo qofna markaasi si aan kala soocayn u laayay marka Oromadii waxay wada mudaharaadyo waaweyn haatan weyn si midoobayaan waxaana la sheegay marka in ay tani keeni kartaba kacdoonkii ay xulka kaga tuureen xukuumadda EPRDF inay tiyo kale ay haatan bilow tahay oo laga yaabo in Abiy Ahmed xilka ka tuuraanba si kasta ha ahaatee waxa iyada haddaba la sheegayaa in ciidamada federaalka ee haatan la keenayo gobolka Walaga ujeedadooda ugu guud ee loo keenay waxa weeye horta inay kala dhex galaan ugu talagashay xukuumadda federaalku laakiin dhinaca Oromadu waxay leeyihiin waxa loo keenay si ay u taageeraan Axmaarada oo markaa nin Axmaara watay bay leeyihiin adoo si kasta ha ahaatee waxa jirta haatan in ay dagaaladaasi si xoogaysanayaan oo waliba ay wasi darayaan bay'ati ciidamada federaalku yimaadaan oo ninkaasi marka ay sheegayaan dursaba ay leeyihiin waa Axmaar ay leeyihiin marka waxa la oranayaa ciidamada federaalku gabadfalyadaasi ay geysteen haddana waa moogtay ciidamada Axmaarada taageerayaan marka kacdoonka ay Oromadu wado waxa la sheegayaa inuu si xoogaysan doonaba oo ay wasi daray doonaan si kasta ha ahaatee hadda waxa la sheegayaa marka in ay dagaaladaasi keeni karaan markaasi khasaarihii ugu xooganaa abid ka dhaca Itoobiya xagga isirada dadka isku leeynaya waa hagaag dhinaca kale aynu gudubno isla xukuumadda Itoobiya ku jirnaaye jabhad kale ayaa haatan la sheegayaa inay heshiis nabadeed la saxeexdeen xukuumadda Itoobiya haddaba waxay noqonaysaa jabhadani tii labaad ee markaasi TPLF waxay ognahay in bil ka hor heshiis nabadeed ay la gashay xukuumadda Itoobiya oo markaasi jabhadii ugu weyneed Itoobiya ka jirtay ay ahayd haddaba jabhadii labaad iyaduna awoodda badnayd ee dagaalka xoogan kula jirtay xukuumadda Itoobiya khatarta weyn ku haysay ee ay wadnaha farta ku hayeen xukuumadda Itoobiya ayaa haatan iyaduna heshiis nabadeed la saxeexatay ayaa la yiri xukuumadda Itoobiya haatan ay kala saxeexdeen jabhadaasi ayaa waxay tahay jabhadda Benshangul Gumuz oo marka iyadu kaba khatar weyneed jabhadaha kale la oran karaa waayo dhinaca Suudaan ayay markaasi la sheegay in laga soo hubeeyo Masar baa hubsiisa la lahaa biyo xidheenkii weynaaye Itoobiya dhaqaaleeda ugu badan ay ka galeen sideen ognahay wuxuu ku yaalaa gobolka Benshangul Gumuz marka taasi ayaa wadnaha farta ku hayeen xukuumadda Itoobiya islaayeen jabhadaasi hadii awood badan iyo badan la siiyo waxa ay markaasi burburin doonaan biyo xidheenkaasi halka laga dhisayo moogtahay Benshangulka kaasi oo marka aad ay wahan weyn tahay xukuumadda Itoobiya inay dhaqaale weyn ka sameyn doonto oo geeska Afrika oo dhan ama Afrika oo dhan electricity ay moogtahay korontada ay u baahan tahay ay markaasi siin doonaan haddaba jabhadii Benshangul Gumuz ayaa la sheegayaa haatan in ay isa soo dhiibtay oo ay xukuumadda Itoobiya heshiis nabadeed la saxeexatay waxaana ay markaasi la sheegay in hubkii ay soo xareeyeen oo marka ay haatan warkana uu noqon doono mid uu aad ugu diirsado ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo marka jabhadaha ku kacsan moogtay Itoobiya ay haatan aad u sii badanayeen Oromadii ay ognahay haatan in iyaduna dagaal xoogan ay wado oo ay doonaysaba in kacdoon
kacdoon xoogan ay sameeyaan oo xukunka ka tuuraan Abiy. haddaba waxaa haatan la sheegayaa inay jabhadaasi beeshaangulku ay doorteen nabad oo ay sheegeen markaa in haatan dagaaladii ay iska gabagabaynayaan oo ay ciidankii markaa sidii ay lahayd jabhaduna la qaramayn doono. waxaanay noqonaysaa markaa haddaba guushii labaad ee ay gaadho baa la oran karaa xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed muddo bil gudaheed ah oo markaa jabhadii labaad ee ugu khatarta badnayd ay haatan hubka ay dhigaan. haddaba dhinaca kale dadka iyagu naqdiya moogtahay arrimaha marka laga geeska Afrikana wax ka sheega ayaa waxa ay sheegayaan in beeshaangulku moogtahay had iyo jeer jabhadoodu ay soo daciifaysayba moogtahay maadaama ay Suudaan iyo Itoobiya ay saaxiib noqdeen laakiinse tan Oromadu ay khatar weyn u haatan ay ku hayso Abiy oo aad loo soo hubeeyay dhinaca kale mucaaradkii iyo moogtahay jabhadii Oromada iyo ay isku biiraan shacabkiiba oo ay tani kaba khatar weyn tahay sida oo kale inkastoo isku dayeen xisbiga moogtahay ay Jawhar Maxamed iyo hogaamiyaan in dhexdhexaadin sameeyaan oo ay wadahadal nabadeed ugu baaqeen xukuumadda Itoobiya la yeelato laakiin ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xukuumaddiisu gaashaanka ayay ku dhufatay. waa hagaag maalmihii aynu soo dhaafnay waxaa soo xoogaysanayay eedeymo ay isku jeedinayaan markaa TPLF ama Tigreega mas'uuliyiintooda iyo markaa mas'uuliyiinta Eritrea iyaga oo markaa qolo waliba ay ku eedeynaysa dhinaca kale inay gaboodfalyo geysanayso. waxaa shalay toola hadlay madaxa sare ee hay'adda WHO Dr. Tedros waxaanu sheegay in ay haatan ciidanka Eritrea si aan gabasho lahayn oo markaa bareera ay u leynayaan shacabkii Tigreega oo ay haatan birta ka aslayaan. waxaa sida oo kale TV-ga Tigreega ee DW sheegay in ciidanka Eritrea ay markaasi dileen dad shacabo ilaa 40 qof ka badan kaasi oo ay ku dileen magaalada Salambate. waxaana sheegeen haatan in ay si aan kala sooc lahayn ciidanka Eritrea ay u dilayaan bay yiraahdeen shacabka Tigreega. haddaba mas'uuliyiinta Tigreega ayaa si istaba jooga eedeymahaasi u soo jeedinaya. waxaana haddaba jirta dhinaca kale iyaduna caqabad weyn oo haatan hortaagan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed taasi oo ah sidii loo hirgeli lahaa heshiiskii uu TPLF la saxeexday bishii November 2 kaasi oo ilaa haatan wax ka hirgalay aanay jirin oo aan hayn dagaalkaasi istaagay. qodobkii ugu weynaa ee lagu heshiiyay ee ahaa inay TPLF hubka soo xareyso oo hubka dhiibto ayaa dhinaca kale waxa hortaagan Eritrea oo diiday haatan inay ka baxaan markaasi dhulka Tigreega oo waxa ay ciidanka Eritrea dhigaha ka fureysteen baaqiyo ay soo jeedinayso xukuumadda Itoobiya kaasoo ay ugu baaqdeen sida ugu dhaqsaha badan ee Eritreanku ka baxaan dhulka Tigreega. haddaba Abiy Ahmed waxa haystay markaa oo hadda waliba soo xoogaysanaysay culayska kaga imanaya dhinaca Eritrea. haddaba si kasta haatee waxa hadda la sheegayaa in TPLF iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay haatan doonayaan in ay si wada jir uga tashadaan bal tallaabada laga qaadayo ciidanka Eritrea kuwa qoomiyadda Axmaarada. Abiy waa kii baarlamaanka ka hor sheegay bishii November meelaha bartankeedii ay yiri ciddii diiday heshiiskaasi inay hirgeliso sharciga cid ka weyn ma jirto wakiili oo tallaabo adag ba laga qaadaya dhinacay doonaan ha ahaadaan ama ha ahaadaan Axmaarada Eritrea ama TPLF. marka TPLF iyada waxa tiri waan oofin heshiiskii hubkoogina way soo ururiyeen waa kana hubkii naga qababay ku yiraahdeen Abiy laakiin se bal horta ciidanka Eritrea na dilayay bay leeyihiin naga saar. taasi haddaba sidii loo saari lahaa ayaa haatan caqabad weyn ku ah xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. haddaba shir degdeg ah ayaa haddana haatan ay iskugu imanayaan mas'uuliyiinta xukuumadda Itoobiya iyo markaasi mas'uuliyiinta Tigreegu. waxaa noqonayaa shirkii saddexaad ee haatan ay yeeshaan. haddaba shirku ka duwan yahay kii hore labadii hore. waxaana hadda focuska lagu saarayaa sidii ciidanka Eritrea si wada jir ah ay ula dagaalami lahaayeen bal Tigreega iyo markaasi xukuumadda Itoobiya. waayo waxa haatan labada dhinacba ay doonayaan oo focuska saarayaan waxa weeyaan Eritreanka sidee baa loo saaraa. marka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed caqabada haysata ayaa ah uma babac dhigi karayo moogta amarna ma siin karayo buuxaba ciidanka Eritrea waayo awood iskaga caabiyaba moogtay malaha la leeyahay moogta ciidamada Itoobiya ku Eritrea marka la barbardhigo hadii ay dagaalamaan yani Eritreanku intaas oo sanadood bay dhagaxa iyo buuraha iyo balaayada holaca ku jireen ciidamada haatan Itoobiya waxa weeyaan qaar intii hore TPLF ay haysatayna moogtay anta bar fiican la siin iyo qaar iga geel lagu tababaray baa leeyay marka uma babac dhigi karaan
ciidamada Eritrea marka haddii sida abi sharciga hirgelinaya oo la dagaalan siraado meesha uu ku jabaya haddaba TPLF ayaa haatan iyaduna waxa ay doonaysaa in ay markaa shaarkii xilato xukuumadda Ethiopia oo ay saaxiibtinimo iyo markaa wada shaqeyn haatan Abiy Ahmed la saxdaan si ay markaa iyagoo isku duuban oo wada jira oo la dagaalamaan ciidamada Eritrea taasi ayaa haatan la falqeynayaa baa la leeyahay